السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال إذا لهانتين بقى ميل والبدن قد داوتان هل كان ورايل تي في حرنتا إنه كلنا هاي مقالة مقدشو داوديال waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka waxaan idin la diyaarahay aniga ah Mira Sheekh Maxamed Kashka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galay munaasabadda 26 Juun taasoo ka dhaceysay xarunta dawladda hoose sida warkaasi noogu hayo wariyaheena Cabdiraxmaan Saciid Xasan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka qayb galay xuska sanad guurada 59aad ee ka soo wareegtay maalintii xorriyadda gobolada waqooyi ee dalka ayaa u hambaliyay dhammaan shacabka Soomaaliyeed munaasabadan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha maxkamadda sare mudane Baashi Yuusuf Axmed gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Riiso wasiirka warfaafinta ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada mudane Maxamed Cabdi Xayir Maareeye golayaasha dawladda Soomaaliyeed iyo saraakiil ciidan iyo qaar ka tirsan bulshada rayidka ugu horreyn waxa madasha ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Riiso oo ka hadlay xuska maalinkan xorriyadda wadaniyadda iyo qiiradaba aad moodayso xoogayso waad arkayso kaan walba guri walba in calankii Soomaaliyeed ka suran yahay madaxweyne dadaalkaas waxa uu yimid waxay tahay muddo 2 sano iyo bar Febraayo 2017 ka dambeeyay ummadda Soomaaliyeed inay heleen madaxweynahooda shacabka madaxweyne daacada madaxweyne dawladnimada iyo shacabka dhiirigelintiisa aad ugu weyn tahay taasna ka dareemayno qiirada iyo wadaninimada soo laabatay oo aan rabnay halkaas si xoogoodo oo aan rajaynayno shacabka Soomaaliyeed oo mar walba u taagan in intaas ka sii dardargeliyaan kana sii wadaan madaxweyne waxaad aragtay dhankii wacyigelinta aad arkaysay in sidii barisamaadkii ay caasimadan kusoo laabanayso oo wacyigelintii baabuurtii mikrofoonada ku xirnaa iyo warbaahinta oo runtii aan ayagana raba inaan si gaar uga mahadceliyo madaxweyne sida ay isbuuca xorriyadda aadka ugu weyneeyeen ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan caalamka gudaha loo tusay xafladan halkan ka socota madaxweyne waxaa iyadana sidoo kale live ugu jira TV-yada Soomaaliyeed oo caalamka hore laga daawanayo rajaynayna in ay dadkii ku soo celiso taariikhda iyo Soomaalinimada siday ahayd waxa kaloo farxad ah in caawa Macyare iyo Ismaaciil Axmed Ismaaciil iyo Jaamac Kalluun iyo Jangeli oo hadda dhalinyarada cuslaad lagu soo daray dhammaantoodna halkan taariikhdii ay si qurux badan ugu soo bandhigeen iyadoo wasiir Beyle taxdiisan ay ahayd runtii aan la hilmaami karin madaxweyne waxaa ujeedaa shacab runtii diyaarsan waxaad ujeedaa shacab diyaar u ah in 59 sano ka hor ay xasuustaan waxaa kaloo iyadana rajaynayna sida la sheegay in walaalaheen waqooyi oo runtii 59 sano ka hor si wadaninimo ku jirto Soomaalinimo ku jirto kalgacal ku jiro u gartay inay muhiim u tahay 26 Juun inay calankii laga taago Hargeysa kadibna 2 Juulaay halkan Soomaalida lagu mideeyo isla markaana Soomaalida midaysan ay hor u socdaan waagaas awoowayaashii reer waqooyi waxay ahayn dad aragti dheer leh u jeeday Soomaalinimo u jeeday in midnimada iyo wadajirku yahay wax wanaagsan maantana aan rabno awoowayaashaas iyo aragtidooda dheereed inaan marnaba la hilloowin la sii wado waxaa kaloo u jeeday caawa madaxweyne nimcadilaac xidigaha Hargeysa inay caawa halkan nala joogeen waa runtii oo muujinayso dhalinyarada meel kastay joogaan ama Hargeysa ha joogaan ama Muqdisho ama Boosaaso ama Baydhabo ama Kismaayo ama waddanka caalamka inay mar walba diyaar u yihiin midnimada ummadda Soomaaliyeed wadajirkeeda caawa kalena ay tahay habeen aad iyo aad farxad u ah waxaan ognahay in waqtidii madaxweynaha ay naga dambayso oo aan rajaynayno iyo calansaarkiiba madaxweyne waxaan rabaa inaan hortaada uga mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka caasimadda mar walba intii ay khudbad socotay waxaa isna goobta ka hadlay gudoomiyaha aqalka sare mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi
imaanaya halkii yani way noqon kareen dowlad gaar laakiin waxa kala weynaatay midnimo Soomaaliya iyaga oon mas-uuliin arrintaa iyay toos Julaay 1960 ay keeneen waxaan isleeyahay aad iyo aad dadkaas inay wadaniyiin oo aynaan dhibaato Soomaaliyeed inay u horseedaan ayna laakiin sidii raggii iga horreeyay cali sudaankii odayaashii wasiirkii dhammaan intii iga horreysay dhammaanta ay soo jeediyeen ayaan soo jeediyey waxaanan isleeyahay on aad iyo aad u aaminsan haddee shalay haddii ay keeneen oo ay soo qaadeen waxaynu rabnaa midnimo Soomaali ma kala maarmi karto cid gaar isu taagi karta ma jirto ayday leedahayna ma jirto China mitaal soo qaadanay adduunka waa dadka ugu badan 1 bilyan ayay sii mareen waxaana weeye waa hal dowlo waxaana lagama maarmaan wax kastaba waxaan qabaa meel walba dadka ugu badan dadku markuu badan yahay wax soo saar aad iyo aad buu wax soo saar wax soo saarku waa awoodda dadka sidaa la ajliga waxaan qabaa inay midnimadeennii sidaan u soo celin lahayn ee aynu raaligelin isaga bixin lahayn ee aynu isu kaashan lahayn inaynu samayno dalkeennu waa qani shaki kuma jiro waxaanan arkayaa maanta caalam badani inay u soo baratamayaan oo kala firirkeennan la rabo cid waliba inay ka faa'iidayso wiil dhallinyara oo Soomaaliya hees hadda waxa weeye sanad ka hor ayuu wuxuu leeyahay in dalkeennu hodan yahay weliba diin yahay habeen udubku siiso diiran leeyahay dalxiiskana ku wacan yahay dunidu way ogsoonta waxaa dalka keenaa nabadda looga digaya ee faradgelinta dibadda ah aan laynooga daynayn inay tahay daraaddu miyaynaan dareemin waxa weeye caalamku wuxuu u socdaa khayraadkaasu u socdaa innaguna waxaaba weeye reer hebel sidii hadda loo sheegay ee cid waliba calan reer hebela taagatay iyaynuu taagan wallaahi bilaahi waan dhaartay inaan qabiil dowla lagu noqonin wax kastoo inaan qabiil dowla lagu noqonin ugu dambeyn waxaa hadalka soo xiray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka hadlay munaasabadaani oo si qoto dheer la u guda galay 26 Juun waa 59 guuradii ka soo wareegtay maalintii ugu horeysay oo dhul Soomaaliyeed oo xora caalam Soomaaliyeed oo kaba qodo oo laga taagay waa maalintii halgankii dheeraa oo dhibka loo soo maray laga balgaliyay oo Allah u naxariistay Cabdullaahi Sultaan Timcade oo qiiraysan ereyadiisii wadaniyada ku dheehneed taariikhdana gashay ku yiri sareeyo manusqaamo aan siduu yahay eegno ee kaana si kana saa
calanka Soomaaliyeed goobtii ugu horeysay ee laga taagay waxay ahayd beertii xorriyadda ee magaalada Hargeysa taasoo qof walba oo Soomaaliyeed shucuurtiisa iyo dareenkiisa ay taabatay halgankii gumays sidiidka iyo Soomaalnimo wuxuu ahaa mid ka soo bilowday gobolada waqooyi inkastoo gobolada koonfureed naftigoodu ay aad uga dagaaleen Talyaaniga waxaa hogaaminaya dhaqdhaqaaqaas waqooyi ka bilowday Allah u naxariistay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan halgankaas gumays sidiidka waxaa halkaas ka sii waday ururkii SYL ee hogaaminaya 13 dhalinyaro oo noqday kacdoonkii wada gaaray Soomaali oo dhan sidoo kale halgankii gobol-nimadoonka Soomaaliyeed ee gobolada waqooyi ee Ingiriisku gumaysan jiray waxaa ka kacay oo horkacay ururo la yiraahdo National United Front, United Somali Party iyo Somali National League Soomaalida waqooyi waxay ahaayeen kuwii ka diiday taladii gumaysiga Ingiriiska inaysan la midoobin koonfurta Soomaaliyeed ayna diideen inay gooni istaagaan oo Soomaali la lahaadaan dowlad qura waxay ahaayeen kuwii awoodoodu iyo halabuurkooda u isticmaalay baahinta iyo faafinta dareenka wadaniyada Soomaali oo qura Soomaali oo qable Soomaali oo ku wada nool hal dowlad iyo hal calan waxaa xusid mudan in suugaantii Soomaalinimada iyo wadaniyada abuurtay ay ka timid badankooda abwaanadii ka soo jeeday gobolada waqooyi abwaanadaas cabdiraxmaan siciid xasan cabdiraxmaan talante TV-ga Royal magaalada caasimadda ee Muqdisho.